أرجع واحد دفاع يساوي لا أرجع بقى نقعد نعمله وبعد الدفاع بتشوفني حلبان كبر برا لك الصوت ورت اللي أنا دفاع نقص في معها حسبنا أنا ومكتر سنة هاي وطني منك وين وقدامه الواس مع الحاكمون وما يركع إرجابه madaxweynaha iyo waftigiisa miyuu soo dhaweeyey mise mibuu soo dhaweynin dagaalka u dambeeyay halkan hadalkan uma ku dhintay waa dubqalayna marka waxaasoo kale lagu hadlayo kuutada ugu shisheysay cadowgana in hadalkan uma haysta axmed nuur yuusuf guruuje oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo saaka ka dhex doodaya aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in deegaankiisu uu difaaciyo dalka isagoo geesti kalena uu ka jawaabay xildhibaano taabacsan xisbiga kulmiye oo iyaguna geestooda kale eeda u jeediyay asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland inay mar wada ansixiyaan haddii labada gole mar wada ansixiyaan wuxuu noqonayaa declaration baaqa oo aan awood lahayn anigu waxaan qabaa inuu ku wanaagsan yahay in golaheenu ansixiyo kadibna golaha guurtida kadibna madaxweynuhu saxo suu saamaynta sharci u yeesho haddii kale dad baaqa aanu maalin walba idaacadaha kasii dayno kulu noqonayaa qodob halkaasaan kaga tegaya qodobadan la soo qoray waxaan anigu aan soo jeedinayaa in la habeeyo oo mabaadiicda ay ka hadlayaan la qeexo kow marka ugu horeysa waa in qodobka koobaad ee soo baxayaa noqdo inaynu u aqoonsano dee dowladda muqdisho dowladda nagu cadowga aqoonsigaasay ka dhalanayaan waxyaabaha tafaasiishii laakiin haddaynu tafaasiisha hadalka ka barano tafaasiishu ma dhammaato arrimahan oo kale marka laga hadlayana dabar baa loo yeelaa dabar markaa qodobka koobaad ee naga soo baxaya waa inuu noqdaa dee qodobka recognitionka ah qodobka labaad waa inuu go-aan noqdaa oo ah kor haddaynu cadow u aqoonsanay dowladda muqdisho waa in go-aankeenu noqdaa inaynu xidhiidhadii oo dhan u jirnay hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid wada hadal hadday tahay mid wada ganacsi ciddii waxaa ku xadgudubtaana waxay qodobadeedu ku cadyiin xeerka ciqaabta guud waayo dee waa go-aankaasaa intaasoo dhan ku fulan qodobka saddexaad ee aan ka hadlayaa waxaa weeye ciddii ku xadgudubta go-aankaa in loo arko waxay ku tallaabsatay faldambiyeed qodobka afraad ee soo jeedin lahaa waxa weeye in loo dhigo beesha caalamka qadiyadani labadana qura uma dhaxayso nimankan muqdisho joogaa waxay haystaan qalimaan warqadahana beesha caalamka u qoraan beesha caalamka rays bay ku yihiin nabadgelyadoodii baa la sugaa mushaharkoodii baa la bixiyaa bajetkoodaa la bixiyaa miisaaniyadda waa la siiyaa innaguna beesha caalamka waxaynu u nahay taageerayaal wakhtira 1,000 kilomitro badan baynu ilaalinaa aynu barcadbadeedda ka ilaalinaa iyo wax walba waxna kuma qaadano nabadgelyada gobolka waxaynu u nahay miin waa inaynu beesha caalamka tusnaa ma waxaa muqdisho loogaga hilinaysaan iyadoo xeertu dhinaca kale iyo midba ka gubanayso nabadgelyadaanu badda cad si adduunka ilaalino ma waxaana lagu cadaadinayaa argagixisadaanu buuraha iyaga ka ilaalino ma waxaana lagu cadaadinayaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka haddii ay tahay waxaa muqdisho lagu abaalmarinaya qaraxyada innagana waxyaabaha dhaa laynagu dhacayaa dee waa laydhaha ummadda dunida ha caddayso inay jecel tahay waxyaabaha oo aanay jecleen waxyaabahan aynu ku shaqaynayno qodobka shanaadaan soo jeedinaya waxa weeye midnimada ummadda waxay soomaalida ku mahmaahdaa haaliguntay ka talontaa hadalkana in la istag taaganaha waxaa kaloo soomaalidu tidhaahdaa ayay iscunaysaa ayay iskama celiso haddii ummadda Soomaaliland magacyo loo kala bixiyo haddii Soomaaliland umad gruubteeda la kala kaxeeyo dee meel gaadhi mayno waxaynu ka hadlaynay in hadallada xanafta ah ee ummadda kala kaxaynaya laga joojiyo halkan waxaa ka caddaatay xildhibaanada nimanka igu horreeya muxaafidkii inaan hadalkaasi ugu badhaadhicinba mudane guddoomiyey xisbiga annagu aanu ka tirsannahay ee waddani ninka ugu weyn ee ugu daaweyna waa Ismaaciil Xaaji Nuur waa maayarka Ceergaabo madaxweynaha iyo waftigiisa miyuu soo dhaweeyey mise mibuu soo dhaweynin isagoo magaaladiisii iyo dadkiisii wata muu soo dhaweynin marka la leeyahay waddan wuxuu doonaya in waftigii madaxweynaha dhulku la go'o hadalkaas
بدل يسوق لك حاليا كانوا سيرته قاضي يا والله كان يمكن اللي يعبها واحد دفاع يصير له طورنا إياه هذا الكير يصير سراكي دعنا كلامته قررنا وقررنا صعب ونقول جوابنا هذا هكذا واحد دفاع يسوق الله عرقبان نقام عليه وبعد الدفاع بتشوفني حل بالك بربرا لك الصوت دورتك إنه أنا دفاع نقص في معها مدن يا دور waxay ka raacda waa isku dhigaya dhageysta mudana waxa weeyaan adiga deegaanka laga soo doortay dagaalkii wadanka lagu xoreeyay kulliya 200 baa kaga dhintay oo magacyadooda Soomaaliya yeelan aan toban noolkooda kaga dhintay asna sheego yeeli maayo waxa weeyaan dadkii reer Soomaaliland waa gurubtooda hormadeeya oo hadal salaaxad laga hadlaa oo ay muwaadinimadeena iyo sharafteenu gaadha ragga Soomaaliland u dhashay ee dalkeena leh ee baanta inaga soo horjeeda inaynu laabta gelino oo soo dhaweyno oo walaalnimadii iyo qarannimadii iyo waxwadanaantii ku soo celino dadka inaga maqani waa dadkii walaalkeen casuubo soo dortay khilaaf baa inagu dhacay waa inaynu ka daba tagnaa laakiin markaad anigii kula dhimanayay ee wadanka kula lahaa aad cadowga gudaha u taqaano kula halaarayo ummadaalka nolol marnayo ummadda meel la midaynaya guddoomiyuhu ogi dagaalku u dambeeyay anaga hadarkan waa ku dhintay waan dulqalay nabaga waa soo galan ugu hadlayo kuutada ugu shisheysay cadowgana in hadarkan uma haysta waxaanu leenahay Soomaaliland laga daayo waxyaabaha qarribaya ee dagaalka Muqdisho u nugleynaya wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh